waxaa allah uu soo diray ambiye iyo rasuulo si ay ugu gudbiyaan risaaladiisa dadka, wuxuuna ku xoojiyey mid walba mucjisooyin u gaar oo aan caadi ahayn oo dhaafsan aqliyadda basharka. inkastoo la siiyey mucjisada ugu weyn maxamed calayhi salaatu wasalaam, waxaa jirtay ambiyo kaloo la siiyey mucjisooyin aan caadi ahayn. waxaan idiinsoo gudbinaynaa mucjisooyin la yaab leh oo ilaah ku manaystay ibraahim iyo ciise calayhi salaam, waana afuufka neefta dhoobada oo ilaah idankiisa isku bedelaysay shimbir duulaysa, iyo weliba inay soo noolayn karaan oo la dhintay awoodda ilaahay idankiisa. noola dhintay oo lasoo nooleeyo waxay ahayd mucjisooyin nebi ciise calayhi salaam uu la yimid reer bani israa'iil. naf lagu afuufa ruux iyo ruux dhintay oo lasoo nooleeyaana waa awoodaha ugu waaweyn ee awoodaha ilaahiga ee samaawiga ee isaga u gaarka. noolo walba oo ilaah bila aaba abuurayna waxa uu ku afuufay naf, waxaana uu ka abuuray aadan dhoobo, waxuuna ku afuufay naf, wuxuuna noqday bashar nool oo socda. waxaana ilaah korreeyey isagoo ka warramaya uu yidhi: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. waxaana lagu afuufay maryan markii la abuurayay ciise aabala-aan, waxuuna yidhi allah فنفخنا فيه من روحنا. laakiinse afuufka dhoobada ee nebi ciise waa ka bedelan yahay afuufka nafta ee ilaaha koonka abuuray. allah isagu wuxuu afuufaa nafta, wuxuuna leeyahay awoodda nolosha iyo geerida. ciise calayhi salaam isagu wuxuu afuufi jiray dhoobada, waxaana ilaah idankiisa isku bedeli jirtay shimbir duulaysa. waxaa laga wariyey ibaaba tabaraani in maalin maalmaha ka mid a ciise calayhi salaam uu la fadhiyey dhallinyaro dacyar, wuxuuna qaaday dhoobo, wuxuuna ku yidhi dhoobadan waxaan ahaysiinayaa shimbir duulaysa. waxayna ku dhaheen dhallinyaradii, miyaad awoodda arrinkaas? ciise calayhi salaam wuxuu ugu jawaabay, haa, ilaah idankiis. wuxuuna qaaday dhoobadii, wuxuuna u ekaysiiyey shimbir, uuna afuufay, wuxuuna ku yidhi, noqo shimbir ilaah idankiis. waxayna noqotay shimbir wayna duushay. laakiinse waxaa nebi ciise ka sameeyey shimbirtu ma ahayn quri ama xaashi ee waxay ahayd dhoobo. dhoobadana ilaah waxa uu ka abuuray qaybo ka mid a makhluuqaadkiisa, waxaana unugyada dhoobadu ay ku jirtaa qaybo ka mid a abuurka. kadib mucjisadan, ciise calayhi salaam ilaah waxa uu ugu nimceeyey inuu soo nooleeyo meydka, cunadana ka warramo. waxaana ugu dambays uu uga warrami jiray dadka cunnada ay cunaan ama guriga u taalla. uguma soo horreey nebi ciise inuu soo nooleeyo shimbiro, waxaase uga horreeyey ibraahim calayhi salaam. waxaana ilaah isaga oo ka warramaya uu yidhi sida tan: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. wuxuuna ibraahim calayhi salaam ka codsaday ilaah inuu tuso mucjisada soo noolaynta iyo afuufka nafta, umuusan weydiisan dalabkan ilaahay shaki ku jiray. ibraahim calayhi salaam ilaa yaraantiisii wuxuu aaminsanaa allah yaqiin adag, wuxuuna naftiisa u damaanad qaadayay inuu maqaam sare ku leeyahay ilaahay agtiisa. wuxuuna allah ku yidhi isagoo u jawaabaya: قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ibraahim calayhi salaam wuxuu fuliyey amarkii allah, wuxuuna soo qaaday 4 shimbirood oo kala gedisan. waxayna kala ahaayeen diiga cas, shimbir cad, daawus akhtara iyo tuke ama qambaar madow, qofba sida uu u yaqaan. wuxuuna bilaabay inuu gowraco gebi ahaantood, wuxuuna isku dhafay hilibkii, baalashii iyo dhiiggii, wuxuuna ku dul firdhiyey buuro kala gedisan haraadigii. wuxuuna amray shimbirihii inay u yimaadaan, waxaana ilaah soo nooleeyey shimbirihii, wuxuuna ku afuufay naftii. waxaana ibraahim calayhi salaam indhihiisoo shana dib laysugu shakalay shimbirihii mid walba sideedii, xitaa ilaa iyo dhiiggii. waxayna hor yimaadeenba iyagoo aan la moodayn inay dhinteen. waxaana ceeb ka nasahan ilaaha awooddaa wax walba ay gacantiisa ku jirto, awooddaa dhimashada iyo geerida. laayikoo la wadaaga saxaabtaada haddii aad ka heshay sheekadan.
la yaabka badan.